cirka la isma fiirin jiro waxaan ka wadaa maanta waxa waaye gabadhu waxay leedahay fursado waxa laga yaabaa inay wiil ay muxuu ahaa sheekaystaan israacaan makhaayad tagaan ay la sheekaystaan annaga waxay ahayd yani inaad heerkaas aad gaartid qof intaad jidka la martid makhaayad la fariisatid waxay ahayd xaalad adag bay ahayd marka sheeko yar baa idin sheegaya cirka la isma fiirin jirin macnaha waagayagii horeeto waxaa la yiri nin muxuu ahaa hadda xilligan waa ku dhowdhownahay annaga marka la isku fiiriyo gabdhaha maanta jooga way matali karaan yani dhaqankaas annaga laakiin ma aanan lahayn waxaa la yiri nin ajnabi ah iyo xaaskiisii baa meel soo wada fariistay jardiin habeen xaaladdu iska iftiinku iska fiicnaa noloshu iska fiicnay markay meeshii soo fariisteen xaaskii iyo muxuu ahaa odaygu wuxuu yiri xabiibi buu yiri bal caawa dayaxa fiiri marka dayaxii bay fiiriso waxay tii wallahi aad u qurux badan wuxuu yiri xabiibi adaa ka sii qurux badan marka macnaha waxa waaye waa matashaan idinka laftirkeenu maanta waa isdhihi kartaa laakiin anaga xilligayagii waxay ahayd waxaan dhihi jirnay naag baa waxaa la yiri mid xariif ah oo muxuu ahaa qoladaas oo kala arkay baa wuxuu ku soo noqday xaaskiisa wuxuu yiri caawa ana cirka u fiirsha oo xaaskayga maanta intaas oo kale ku matala waxay sameeyay gabadhiyo maanta oo dhan mar caruurta cuno u kari mar suuqa aad mar waxay shaqadii oo dhan ku dajin aad u daalan buu u yimid waxa isla iyaduna mar haddii odagu ka imaan lahaa xoogaa cashadiisa iyo wixii u diyaari seexo markay soo fariisteen oo meeshii soo fariisteen oo dirintii banaanka u soo dhigtay cashadii u soo dhigtay wuxuu yiri xabiibi bal cirka fiiri marka waxay tiri ma dayaxii baa madoobaaday يعني way adag tahay bixin waxay dayaxa ka fiirisay iyo hawlaha ma ay hayso marka wuxuu yiri ma xabiib dayaxa soo ma qurxoon waxay tiri war ha ku dambeeyo dayax fiirintuye caruurta biilkeeda ma wada marka macnaha waxa laga wadaa kaafiye kala dheeri maanta noloshu waa nolosha saas u gadisan